khayrkeeda kuwa hadayna nagu soo dir naga yeer sabki nabigeena allahayow nasir khayrkeeda kuwa hadayna nagu soo dir naga yeer sabki nabigeena إلهي سميه عبدي وقصتودا إنو صالحين ديو لكن بيقوه الشدو إنو صالحين ديو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوديال إذا لهانتنا كنا سوى هذا برنامج يعني أفر إيو أبال مرين أو هذان أو كلا كداوتان تلفزيون كقرن كجمهورية السومالان داوديال برنامج كنا أفر إيو أبال مرين أيها برنامج أنو داودياشا كسي نقدر العقو أنو قلت لك اللي معلن تايني كو أفران إيو مصحف قرآن أنو قلت لك اللي بعدما بيشا بركيسان رمضان أي تاي بيشي قرآن كسودقي إن أي آخرستان كنا فايدستان daawadayaal barnaamijkeena waxaa gacan weyn ka geysatay shirkadda Soosom Cable qadar xayisiisa bal shirkadda Soosom Cable ila daawada Somaliland dhamaantii subaxdii iftiintaba soo gashaa siraadka iyo internetu sida suuqyada magaalada ganacsiga susumaya sixirada ascaarta iyo sarifka dhex yaala waxay saanta haystaan internet ilaa cusub oo marqura goyn hadduu ganacsigaagu korayo khibrada adduunyada shirar aad la gelineed waddan kale aad oo tegin kharashkaaga bixin baad internet adeegsanoo soo gashaa awood badan feebarkeedu saxan yahay ganacsigana u gaar yahay qoys lagama maarmay guriga iyo carruurta iyo madadaaladooda mar kastaba muhiime markay soo gasho helaan bay muxubbada mabsuudaan maankaaga geliyo internet ha moogaan gurigaaga soo gela wireless speed badan feebarkuna ku xidhan yahay la xidhiidh dadkaaga oo caalamka la jaanqaad mayfay awood badan dharaariya habeenkii hadduu isticmaalkaagu badan yahay daatadiisa xadid ma le mashquul iyo dhammaad ma leh mar qudhaata go'id ma leh haddaad gaadho suuq iyo goobaha waxbarashada halka lagu caweeyaba soobaa isgaadhsiin gurigaaga baahnayn ruutir kugu xidhayno hawadaada keento kugu tidhi wayfaygaaga furo oo isticmaal la dabadeed hotspot speed badan soo gasho waa shirkadda koowaad ee Somaliland hogaaminaysa isgaarsiinta internetka fiber optiga ka ganacsiga iyo ka guryaha iyo dhammaanba adeegyada kala duwan ee shirkadda soo ay bixiso internet awood badan oo fiberka ah wax ku baro ku daawo ku ganacso ku iibso ku iibi kuna ciyaar isticmaal mar walba iyo meel walba tayadu waa awoodee daawadayaal waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeena afur iyo abaalmarin oo idinka imanaya magaalada Gabiley gaar ahaan agagaarka mise jaamaca magaalada Gabiley marka hore magacaaga saddexan cabdixakiin bare Ismaaciil oo degan degmada Gabiley gaar ahaan xaafadooda jira cabdixakiin wararka ma dhigid ilaa xagga gaadhay ilaa kala badhoon ka gaadhay cabdixakiin su'aal diini ku weydiin dad garata abaalmarin baa lagu siinayaa dad garoodana qof cilmiga oo dhan dhameeyay ma jiro diyaar moota insha Allah way su'aashan ku weydiin waxa koodhanaysaa maalmaha aanay banaanin in la soomo maalmaha aanay banaanin in la soomo waxa weeyaan maalmaha Eid oo kale way hambal ayaan kula wad ku guuleysatay su'aashaas sax ku tahay ka waran dareenkaaga sidoo aragtay barnaamijkan wallahi dareenkayga waa mid aad u faraxsan barnaamijkan waxaan rabaa mid aad u fiican dhalinyaro ahaan aad u fiican waliba xagga diinta in aad loo bartaa waxa noqonaysaa dadka motivation iyo dhiirigelin aad ba maasanta shirkadda soo iyo telefishinka qaranka ku guddoonsiin isgaarsiinteena soo daawada ku soo dhow barnaamijka afur iyo abaalmarin ku dhawey magacaaga saddex Cabdirashiid Fariidash Cabdirashiid wali barnaamijkan afur iyo abaalmarin marna ma loo kulanto ma daawad ma iibaan raadiyaaba laakiin TV ma ka daawad TV ga aad u daawada shadawada siinay joogtay markii way su'aal diini ku weydiinayna hada garata abaalmarin baad heli doontaa dad garwadana qof cilmiga oo dhan dhameeyay ma jiro diyaar moota aad iyo aad way su'aashu waxa koodhanaysaa Ramadaan waa bisha imsaada bilaha islaamka bisha Ramadaan waa bisha imsaada waxa weeyaan Ramadaan waa bisha shanaad jawaabtaadu u dambeysay waayay aad baan waxaan jeclaa inaad ku guuleysato waxaan rajaynayaa kuwa dambe sii doonto aad baan kaaga mahadcelin sida qurux badan nooga qayb qaaday isgaarsiinteena soo barnaamijka afur iyo abaalmarin ku soo dhawo aad baan ugu dhowahay magacaaga saddex magacaaga Jamaal Baadil oo degan laagbarako gobolka Gabiley way Jamaal quraanka ma dhigatay quraanka
واي سؤال ديني ku weydiinana adad garto waxaan ku siinaa abaalmarinta shirkadda soo iyo telefishinka qaranka ugu talagaleen waana ka kooban tahay musxafka quraan kariimka sodonka jis maadaama bisha quraanka soo digaynu ku guda jirno iyo qadar lacag oo ugu talagalay inaad ku afurto halkan kale waxa ku jira kalendar aad ka eegan doonto maalmaha iyo bilaha lagu guda jiro diyaar soomati aad baan haa diyaar baan su'aashan ku weydiinaa ku oranaysaa imaam bukhari soo maqal iyo muslim su'aashan ku weydiinana waxa weeyaan imaam bukhari magaciisa ma garanayo way aad baad ma saddex arjina inaad ku barnaamijyada dambe su'aalaha dambe sii doonto isgaarsiinteena soo daawadayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenii afur iyo abaalmarin oo idinka imanaya magaalada Gibli marka hore magaca Gusta waxa la yiraahdaa Warsamo Xasan Abne degan magaalada Gibli gaar ahaan laag barako way warsamo maahan warsamo su'aal diiniga ku weydiinaa dad garato shirkadda soo iyo telefishinka qaranka waxa ku siinayaan abaalmarinta ay kugu talagalay dad garwadina qof cilmiga oo dhan dhameeyay ma jiro diyaar mootay diyaar baan ahay su'aasha aan ku weydiinayna waxa ku oranaysaa masjidkii nabawiga ahaa ee masjidu nabawi ee Madiina laga dhisay Nabi Maxamed Cali sallallahu alayhi wasallam markii uu tagay ka dhistay isagii saxaabadu ay dhiseen magaciisa maxaa wuxuu ahaa منور مسجد الأقصى جاوبت هذه الدنيا واسكو دو wanaagsan laakiin waa jawaabta saxda aad kaga hadlin isgaarsiinteena soo marka hore magaca Gusta magacayga Xasan Maxamed Axmed degan gobolka Gibli gaar ahaan xaafadda Laag Barako way quraanka ma dhigtay quraanka waan dhigtay ilaa dhowr iyo 10 jis baan ka gaaray kitaabka haddaan imika ku kala furno su'aashaada ka dhignayna kitaabka kala furno oo halka ku soo baxda kuna akhriyo akhriis kulli aad intaan gaaray aday tahay way su'aashu aan ku weydiin doonaa waa su'aal diini ah su'aasha diinigan ku weydiina waxay tahay Ramadaan waa bisha imsaad bilaha islaamka Ramadaan waa bisha inay Ramadaan maxaa tiri waa bisha imsaade waa bisha imsaade bilaha islaamka waa bisha saddexaad وجاوبت هذه الدمس رمضان على مسألة على بش هنا شناد بنك ديسني واسكت وناكسين لكن ما جاوبت صحيح بنك مهد zoo waxay ku soo kordhisay adeega kulanka internetka oo aad sharar ku geli kartid ardayna aad wax ugu dhigi kartid habka maqalka iyo muuqaalka internetka adigoo meel kasta ka soo gelaya gurigaaga xafiiskaaga iyo goob kasta oo aad ku sugan tahay adeega kulanka internetka soo waa mid aad ku kulmi kartaan idinkoo isku arkaya foolka fool waana mid aad u dhib yar waxaana ka xiga oo kaliya gujin ama taabasho waxaanu ku suurtagelinayaa adeegani maqal iyo muuqaalka ah فيديو aad u qurux badan iyo cod faseexa marka aad ka qaybgalayaashaada meel iskugu keentindan waxa ay dareemi doonaan inay ku wada jiraan qol kaliya adeegani waxa uu aad ugu fiican yahay waxbarashada adigoo quraanka ku dhigaya macallinkuna waxa uu si toos ah u arki karaa ardaydiisa oo dhan ardayduna waxay arki karaan macallinka quraanka u dhigaya waana ismaqli karaan halkaasina quraanka ayaa lagaga dhageysan karaa adeegyada kala duwan ee waxbarashada nooc kasto ay tahay macallimiintu adeegani waa ka ugu fiican ay wax ku dhigi karaan iyagoo adeegsanaya internetka xawaaraha dheereeya ee fiber optica shirkadda Som Cable haddaba si aad u isticmaashid adeegani waxaad u baahan tahay laptop kamarad leh iyo mobilkaaga oo ah nooca kamarada leh haddaba si aad isku diiwaangelisay adeegani booqa page-ka aan ku leenahay internetka ee www.so-gasho.com/virtual-room waa halka aad ka helaysid si aad iskugu diiwaangelisid adeegani maqalka iyo muuqaalka ah ee shirkadda Soo isgaarsiinteena soo وانا مركور مقعاقا سلمان ورسمه شيخ محمد سلمان ورسمه شيخ محمد كسو دhow barnaamijka afur iyo abaalmarin oo kaaga imanaya magaalada Gibli xaafadiinu joogna waxa xaafadii waa eedin meeya masuuq eerka halkii man misu jaamiciyahan marka ma xaafada misu jaamaca meel la oran misu xalada eerka suuq eerka la dhaha way su'aal baan ku weydiin doonaa diiniga dad garata abaalmarin baa lagu siinayaa hada gareedna qof cilmiga oo dhan dhameeyay ma jiro diyaar moota aad iyo waxaad noo sheegtaa
imaam bukhaari ma maqashay haa maxaad ku maqashay isagoo maxay sameeyay isagoo waxaan ku maqlay la xadiis soo warin haddaba magaciisa maxaa dhahdaa magaciisa saddex sano kaliya hebel oo kale magaciisa cabdiraxmaan marmanayn waa magaciisa waaye jawaabtaad u dambaysay inaa cabdiraxmaan magaciisa koowaad waaye waa isku day wanaagsan laakiin maa jawaabta saxdeed baan kaaga mahad celinaysa nogala qayb isgaarsiinteena marka hore magacaagu saddexan cabdiraxmaan mahdi ducaali oo degan magaalada gabili gaar ahaan xaafadda nafaqo waaye cabdiraxmaan quraanka ma dhigatay ilaa halkaas ka gaadhay ilaa aduu soddonkaba waa dhamaysa su-aal diinigan ku weydiinaa su-aasha diinigan ku weydiinaa waxay ku odhanaysaa masjidkii ugu horreeyey magaalada madiina ay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam masjidu nabowi ay nebi maxamed iyo saxaabadiisu dhiseen magaciisi aqsa ma jawaabtaad u dambaysay ayaad wad mahadsan tahay maha jawaabta saxdeed aad baan kaaga mahad celinaya isgaarsiinteena marka hore magacaagu sadex khaalid maxamed daahir oo degan magaalada gabile gaar ahaan xaafidaan iyo gabile waayahay su-aal diiniyan ku weydiin inaad garato abaalmarba shirkadda soo iyo telefishinka qarabka siinaya haddaad garan weydana dee qof cilmiga oo dhan dhameeyey ma jiro diyaar mootay mustacidiin waxaad noo sheegtaa labadii nebi ee walaalaha ahaa ee isku qoomka loo soo diray nebi muuse iyo nebi yaxya isku day wanaagsan laakiin maa jawaabta saxdeed aad baan kaaga mahad celinaya isgaarsiinteena marka hore magacaagu sadex aadan cabdi oo degan gabile gaar ahaan miski jaamac agtiisa aadan qur-aanka ma dhigatay haa ilaa nus waan dhigtay ilaa shanta ma akhri karaysa kitaabka haddaan kuu dhibo haddaad i weydiisad imika haa intaad i weydiisad kitaabka haddaan kuu kala furno oo aad noo akhri karaysa kitaabka kuu kala furno isku dhiibno su-aasha aanu ku weydiinanaa waa su-aal ee runtii aad u fudud waxaad noo sheegtaa labadii nebi ee walaalaha ahaa ee isku qoomka loo diray labadii nebi ee walaalaha ahaa nebi muuse iyo walaalkii haaruun maasha allah hambali ayaan ku leeyahay waad ku guulaysatay halkaa waxaa ku jira musxafkii qur-aanka kariimka ee 30 jis ahaa qadar lacagoo nagu talagalay inaad ku afurto iyo kalandarkii buluug ku yaalaan shirkadda soo iyo telefishinka qaranka ku guddoonsiinaya sidoo aragtay barnaamijkan wallaahi wuu fiican yahay dee kolkuu ay tahay wax diiniya tahay aad buu fiican tahay oo dadka magaranaysa la wacyigelinaya way fiican tahay aad baan hambali ayaan ku leenahay isgaarsiinteena marka hore magacaagu sadex magacaygu waa xuseen nur cismaan oo ku magac dheer jaree way xagee degantay waxaan deganay gebli baan deganay gaar ahaan xaafadda laagbarok way qur-aanka ma dhigatay haa waan qur-aanka ma dhigtay ilaa soddonka maasha allah barnaamijkan waxaa lahdaa afur iyo abaalmarin haddii aad garato oo su-aashaanu ku weydiinay waxaad qaadan doontaa abaalmarinta shirkadda soo iyo telefishinka qaranku ku guddoonsiinayaan haddaad garowadana qof cilmiga dhameeyey ma jiro diyaar mootay insha allahu tacaala haa labadaba diyaar waxaad noo sheegtaa bisha barakaysan ee rabadaan marka bilaha islaamka laga tirina waa bisha imsaan waa bisha sagaalaad weeyaan jawaabtaad u dambeysay hambalyan kule waad garatay guddoon abaalmarinta shirkadda soo iyo telefishinka qaranka ugu talagaleen midigtana ku qabso markaa hambalyan kulen sidoo aragta daba barnaamijkan waxaan u arkaa barnaamij fiican oo dadka lagu dhiirigelinayo oo waxa weeyaan loogu talagalay in dadku su'aalaha diiniga ay bartaan oo had iyo jeer ay ka jawaabaan su'aalaha diiniga waxaan aad u hambaleynayaa shirkadda soo oo hawshan hirgelisay waxaan kaloo aad u hambaleynayaa TV-ga qaranka oo isna dadka aad u dhiirigelay had iyo jeer su'aalaha noocan oo kale na soo bandhiga aad u mahadsantahay assalaamu calaykum intaynu barnaamijkani mid lamida ku kulmi doono waa anigoo maxamed ciise adana axmed jaamac xasan waxaanu idinkaga tegaynaa dhammaantayo iyo dhammaantiinba aynu ahaano ammaanada ilaah